booliska gacanta ay ku dhigaan kadibna kiis lagu soo oogo maxkamadda uu soo maro kale qofkaasi iskama bixi karo maxaa yeelay waa inuu maxkamadda ku laabtaa oo warqad uu soo qaataa warqadaasna ay cadeynayso 2 maalin kadib wuxuu isku arkay qofkii xaaladiisii bedelmaysa oo kaliyaha ka soo bararaya xaniyaha ka soo bararaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا وذا سلام دمان أصحابتي إذا ملك السؤال جبتان كسر بعض المقال عصب أو اللي بعده حسب ما شاء الله تبارك الله سام موضوع الناس كسؤال كتير جايز هل كان حنصو فريستي إن كهالله من كهالله سؤالين خارج بدا أو أها سفر كاجا هل كوكو تنبيها إن سؤالشان إذا كلمة سويدين فملك كيجا يا أصحابتي إذا كلا حتاوي سويدين إن هو تسافر كيجا أنا كم خوسنين وأنا بحيدونا إن شاء الله laakiin bixitaankayga waxa ka horeyso wadooyin badan inaan maro ama aan qaado liga baahan yahay oo welibana aan soo xalayo kadib aan bixi karo oo ka gow ah inaan dib ugu laabto maxkamadda oo aan ka soo qaato warqad iyo ogolaanaysa inaan wadanka ka baxo oo welibana aan fasax ahay markaani oo waxba laygu haysan warqad cadeynaysa inaan ka soo qaato the second inaan ticket goosto kadibna warqadayda testi koronaha inaan samaysto iyo tii tug vaccination bacdaynaysa inaan haysto taasi ma dhacdo waa haystaa markastana cadeyn baan haystaa inaan tug vaccine haysto marka wadooyin badan ayaa jira oo lagaga baahan yahay inaan soo afjaro kadib kadib markaasi fasax baan u ahay meesha doono waan aadi karaa oo wadanka doono waan u dhoofi karayaa marka laakiin muhiimadeedii ugu weyn waxa weeyaan inaan maxkamadda tago maxkamadda tagitaankeedana waad fahansantihiin qof mar hadduu jeel soo maro ama booliiskii gacanta ku dhigaan oo dacwad lagu qabsado ama kiis lagu qabsado oo kale qofkaasi ama kiis lagu qabsado kale booliska gacanta ay ku dhigaan kadibna kiis lagu soo oogo maxkamadda uu soo maro kale qofkaasi iskama bixi karo maxaa yeelay waa inuu maxkamadda ku laabtaa oo warqad uu soo qaataa warqadaasna ay cadeynayso qofkan inuu free yahay fahmino ani warqad waan ka wataa inaan ganaaxay bixiyay ganaaxaas warqad aan ka wato ima ogolaanayo inaan wadanka ka bixi karo laakiin waa inay maxkamadda fasaxda midaas waxaa igaga sadiran oo jirtaa waxay tahay inaan caafimaadkayga soo baaro inaan clean ahay aan aad u fiican ahay just ma ahan in corona kaliya laga baaro caafimaadkayga guud oo dhan hadda appointment maan haystaa appointmentigaas baan sugayaa beri ama saadan baa laga yaabaa inaan aado oo appointmentigaasi aan balantayda ku tago kadibna full check up inaan soo maro full check up kaasina sababtaan u soo maraa waad ogtihiin cunooyinka qaabka daran iyo biyaha meesha laga cabayo oo caafimaadka aan u fiicnayn waxyaabahaas ayaa sababayo inaan check up soo maro fahmino marka insha Allah taasna waa la socon doontaan wixii laga soo dhaho biyaha meesha laga cabo wasaqdiisa ani horta aad baan ugu naxsanaa taasi kumana kalsooni inkastoo hadda yartaan caafimaad aan dareemayo laakiin still shaki baa igu sii jiro shakigaasna waxay keenaa wax kale maan waxa hadda kor aan arkay weeyaan aniga iguma dhicin laakiin qof aan aqaano oo jeel soo maray ay ku dhacday maxay la qofkaasi markuu jeelka soo maray kadib biyaha meesha ayuu cabi jiray markuu jeelka ka soo baxay oo la soo damiido la soo daayay xaafadda asigoo joogo oo wuxuu isku arkay laba maalin kadib wuxuu isku arkay qofkii xaaladiisii bedelmaysa oo kaliyaha ka soo bararaya xaniyaha ka soo bararaya waxyaabahaas ayuu isku arkay qofkii caafimaadkiisii markii la baaray waxaa la ninka maxaa ku dhacay ma cudura ku dhacay ilaa wax xasaas ka dhigaayo dhan waaba biyaha meeshuu ka isticmaalayo waa asagana wuxuu iska ahaa wiil iska ciyaalka xaafaddu iska ahaa wuxuu arko iska samayn jiray dhib kaliya ayuu ahaa markaas ku dadaalnay dhakhtar baan geynay daawooyin loo soo qoray gurigiinoo ka baxaataa waa loo diiday marka aniga waa iga badnaa laakiin waxaan different noo dhaxyaa waxay tahay waqti markii la fiiriyo asaga iga badnaa 2 bilood camal meelahaas u xirnaa asaga dhibaatadan taas ayaa u keentay
marka waxaad ogaataa mataqaanaa shay markuu caafimaadku ku saabsan yahay ama bil ha ahaato ama sanad ha ahaato ama hal isbuuc ha ahaato ama hal maalin ha ahaato xitaa 1 hour ha ahaato mar hadduu caafimaadka ku saabsan yahay marba haddaad aragto inuu caafimaadka ku saabsan yahay waa inaad is soo baartaa oo welibana iska soo hubisaa suu shakiga kaaga baxo oo caafimaadkaaga noo kay u noqdo maxaa yeelay dhalinyaro ayaan ahay mustaqbal ayaan u baahanahay nolol ayaan u baahanahay horsocod ayaan u baahanahay marka haddii caafimaadkayga shaki uu ku jiro taasna dhibaato fara badan ayay keenaysaa marka gaay sidaan idin sheegay weeyaan bixitaankayga waxaa ka horeeya horta wadooyinkaas oo dhan inaan soo xiro oo maxkamadda dib aan ugu laabto oo tigid labaad aan jarto warqad koroonaha aan samaysto caafimaadkayga gebigii aan la soo baaro marka hawsha ma sahlana insha Allah ilaahay aanoo wada fududeeyo idinkana ducadiina waad ku mahadsantihiin marka su'aal walba aad soo weydiisaana haddii macquul tahay baa idinkaga soo jawaabayaa kunii koo jeerna waa idinkaga mahadcelinayaa sida quruxda badan aad ila socotaa mar kasta waxaan kaloo idinkaga mahadcelinayaa idinkuna hambalyeynaya maadaama aan gaarnay 80k subscribers marka insha Allah waan rajeynayaa wadada guusha in yar baan uga haray 100k inaan gaarno insha Allah كلي وحبين باسو سعودة حضرتك هذا قالوا وبلن قفي من كميدا إن كفرحية هذا قرن وبلن قاضي هذا بلن تانو بيكوجرتا إن شاء الله بلنتي ستيل نوان حسوستا إن شاء الله ملك استوان شوجو بلن واي وخف إن كميدا ما كفرحين دونا إن شاء الله ما نكون بسيتي ما دام مخالك سوق ربنا نقول مستين مخالك حقيقة كل من حين كي يعني وما ندا بس بالواقع عفوا إن شاء الله باي باي I'm so broken, my wounds are